رمضان مبارك خيارته شرفتي كرامة لا ملك استوى الدنيا كجوكتان وأفرت بيش صدحات سنة كلامة كوني يشاني لباتن كهالكان إنه وبريد سومالي تي في دعوضي البرنامج كي نجميها بوحي نكسو قادرين أرنت أقومك إلا يابك كل نقطة عالمك أوسمي بقرك إنجليز كينج تشارلز الثالث تاسو لنك كلا كلا لسي براها بلشدة بوق يقرراسة آد وبلارن oo markaa dood aan waxba la iskula harinin haatan baraha bulshada ay ka socoto kadib ficilka ugubka ee uu sameeyey muuqaal ayaan ficilkaas idinkaga hayaa king charles waa shaqsiga keliya ee boqortooyada iyo qoyska boqortooyada ingiriiska ka tirsan ee si bareera ee cad u difaaca diinta islaamka ayado qur'aana iyo axaadiis soo daliishada isla mar ahaantaana in badan ku celceliyey maanta reer galbeedku waxa ay ku faanayaan oo tiknoolajiyadda oo horumar ah noocu doono ha ahaado intaba islaamka ayaanu ka dhaxalnay islaam kale aantiisna ma aanan jiri lahayn maantana halkan sooma gaari lahayn goordhow ayaan u tegi doonaa hadalladaas hadda ka hor laga hayo iyo muuqaalka cusub ee hadalhaynta iyo buuqa dhaliya caalamkana soo jiitay balse marka hore waa kan isagoo fartiin kuu soo diraya meel kastoo dunida ka joogtaana ka gudooba. As Muslims across the United Kingdom and the Commonwealth observe the beginning of the holiest of months in the Islamic calendar, the month of Ramadan, I just wanted to convey my heartfelt best wishes to you all and to tell you just how much my wife and I are thinking of you at this special time of year. وحاجات وأوصل نقدونا موقال كاس رمضان ونكسب بلدين رجينا أنك أنيجا يقويس كيجوبا أن جارهان حاس كيسة رمضان مبارك بانو إذن لنا هاي حلي إسبشلا لوجرا إلى هاي ودورتي مهم وأن إذن قلبي عيان إذن كلا جوجنا أو وإذن حبلينا أيوليا وإيمان دونا بس أنت كور كينج تشارلز وحواسنا إنه هذا كور بمقال كهالكا إذن كجسو ديني ninkii gabadha muslimadda ah oo weerar culus lagu hayay muddo aad iyo aad u dheer inkastoo dhinaceeda dhulka la dhigi waayo quus laga taagan yahay oo diinteeda xijaabkeeda cirdigeeda sharafteeda la durayo haddana soo taagan oo rabta inay ilaahay raalli geliso waxaasna dheg jala u siinay ninkii barqadii difaacay buu ahaa oo yidhi xaq iyo xuquuq annaka sheeganayno horumarka oo aniga qoyskayga uu ka mid yahay ayeeyiday aysan haysanin ayuu islaamku gabadha muslimaddaa siiyey oo muxuu ula jeedaa dhaxalka wey ayeeday xaq iyo xuquuq dhaxal uma lahayn horumar kastoonu sheegano gabadha muslimaddaa kun iyo 400 sano ka hor ayuu ilaahay uu dhaxalkeeda meel saaray iyo xuquuqdeeda asaasiga aad ayuu difaacay muuqaalkan markuu dhammaado ayaan kaas halkaa idiin soo saaraynaa Oxford Union Islamic Studies Centerka wacdarihii uu ka dhigay iyo quraankii uu soo daliishaday oo uu yiri waxba fara kuma hayna ee dadka muslimiinta iyo islaamka ma mahad celina cayr baanu nahay faramarane waa duubaya isna halkaan idiin soo saaraya balse marka hore waxaan doonaynaa inaan ku hormarno daawadayaal muuqaalka haatan taagan ee bishan ramadaan dhexdeeda ah waa markii ugu horreysay qoyska boqortooyada ingiriisku ay sameeyaan arrintan ugubka aan soo daynayno castle-ka caanka ama guriga caanka ee Windsor Castle la yiraahdo ee duleedka meeshan hadda aan fadhiyo magaalada London qarkeeda saaran ayaa waxa lagu qabtay markii ugu horreysay afur bisha barakeysan ee Ramadaan lagu markaas maamuusayo 350 qof ayaa afurka ka soo qayb qaatay castle-ku waa weyn yahay waa daar aad u weyn St. George's Hall ayaa lagu qabtay look up the internet waa meel taariikh weyn kula boqortooyada ingiriiska gaar ahaan Windsor Castle oo 1000 sano ka hor la dhisay weli ma dhicinin in halkaa lagu qabtay arrin ku saabsan Ramadaan waa markii ugu horreysay 350 qof in yar ayaan muslimiin ahayn laakiin intooda badan waa muslimiin halkaa ayaa afur lagu qabtay muuqaalkan idiin soo daynaynaa laakiin waxa ka dhashay muuqaalkan waa wax aan la soo koobi karinin kooxihii cunsuriyiinta ahaa baana muslimiintii baana qabsatay shareecana qabsatay islaam baa nala wareegay guryihii loogaga talinaya boqortooyada ingiriiska ayaa iyagoo xijaabiye qaban joogaan oo markaas afur loogu samaynaya christmas laguma samaynin waxaa la yiraahdo
easter laguma samaynin oo markay dhahaan ciisa dhashay laguma samaynin laakiin muslimiinta ayaa loogu sameeyey afur ingiriiskii cunsuriga ahaa korka calala go'an awgeed waa kana baldaawo muuqaalka. This time, Muslims marking the holy month of Ramadan have been invited to break fast at a royal residence. Windsor Castle opened its doors for more than 300 members of the public to join for iftar and pray. Our reporter Asad Ahmad was there. markii ugu horeysay ee St George Hall oo ku dhex yaala markaas Windsor Castle aadaanka salaada maghribka loogaga yeerayo fariinta aadaanku uu wato waad ogtahay waa kala dhageyso. Windsor Castle has seen a lot in its 1,000 years, but never this. 300 members of the public, mostly, but not all Muslim, applied for a free ticket to come and break their Ramadan fast in the magnificent St George's Hall, normally used to entertain heads of state and for special royal events. Amazing, isn't it? waa goob lagu qabto dadka madaxda ee dunida jooga ee markaas dowladda ingiriisku ay soo casumato iyo boqortooyada u yimaada goob lagu martigeliyo weeye oo ka duwan goobaha kale isla mar ahaantaasna mawduucyada barnaamijyada royal familygu ay leeyihiin ayaa lagu sameeyaa oo waa meel u gaar ah oo special ah. dadkii tagay reactionkooda waxaa ka mid ah gabadhan xijaaban sooman ayadoo diinteedii haysata halkaas ku afuraysa boqorka ilaahay ka sokowna boqorka ayaa saxiixay oo suurto geliyey oo yiri albaabadaha laga furo muslimiinta. alla waxaynu weydiinaynaa in uu hanuuniyo maxaa yeelay wax badan oo yu islaamka iyo muslimiinta xaqiiqatan u qabtay hidaayadan ilaahay baa haya waa kan. Amazing atmosphere, and we were saying it just doesn't feel real. It's very kind of the royal family to open their home to us. We never thought we'd be here breaking it down. We've really come a long way. Over 350 people calmly took their seats. sidii masaajidkii oo kale loo goglay kuraas looma dhiganin masaajidka dadku markay afurayaan dhulka la fariistaa halkaasaa timir iyo shaah iyo wixii la cunay lagu cunaa sidii oo kale ayaa loo dhigay masaajid oo kale ayaa laga dhigay haatana salaadii ayaa laga dhaxadimayaa mar dhow dhageyso. To become a part of history. The call to prayer echoed through St George's Hall and signified the time to break the fast. Dates were eaten before prayers were said, and then the meal. To get permission to hold an iftar in a serving, functional royal residence doesn't come easily. You can't. halkan in munaasabad lagu qabto waxay doontoba ha ahaatee arrin sahlan ma ahan. hoolkan lacag kama bixin kartid oo ma kiraysan kartid dadka looma ogola waa in uu boqorku ogolaadaa oo qofka u dambeeya oo la okay weeye waa boqorka oo meel aan loogu talagelinin dadka caadiga inay soo galaan. haddana waxaa suurto gashay waana arrinta aad iyo aad uga caraysiisay markii aadaanka salaada loogaga dhawaaqay muslimiintiina ay isku yimaadeen la afurayo dhulka la fadhiyo iyadoo cidda kale aysan ka darajo sarraynin oo la siman yahay kuwa cunsuriyiinta shareecana lagu xukumayaa diinteennii baa lala wareegay dhaqankeennii baa lala wareegay ingiriiska garan mayno waa ka guurayna. Book it, you can only ask. And even then, there are weeks and months of meetings and negotiations which have to take place. And even then, the final nod has to come from the king. It's a lot of hard work. I feel the king is an excellent ambassador for this cause, and he's committed to community cohesion, to welcoming community of communities, celebrating different faith groups, and also we're incredibly grateful for his support towards the British Muslim community. Indeed, His Majesty the King has been championing religious diversity and indeed encouraging interfaith conversations for many, many years. So this really is just a continuation. waa hagaag sida aad maqlaysaan badaawadayaal waa arrin boqorka ka timid asagu uu markaas mas-uul ka ahaa oo uuna asagu ogolaaday in ay arrintaanu suurto gasho. boqorku ma ahan dadka markuu dhex galo shakhsi isla weyn oo dadka la sheekaysanin. shalayto waxaa niyuuska ku jirtay asaga oo markaas timirtii lagu afurayey ka qayb qaadanaya sidii loo diyaarin lahaa oo baca ku guraya asaga iyo xaaskiisa. in badan ayuu islaamka iyo muslimiinta wanaagga iyo horumarka diintan islaamka uu ka hadlay. ayuu joogaa
hidaayadana ilaahay baa haya laakiin waxaanu odhan karnaa dhibaatada uu kala kulmay inuu muslimiinta iyo islaamka u hadlo oo markuu fursad helo uu yidhaahdo diinta islaamku ma ahan diin dagaal wada diin dhiig daadinaysa balse waa diin xadaarad leh inaanu ka mahad celinana weeye waxa aynu ka baranay saynis ha ahaato technology ha ahaato horumar kale ha ahaato xadaarad ha ahaato xilliga muslimiinta Spain ay ka talinayeen 800 sano Yurub meel kale iska daaya boqortooyada Ingiriiska dadku haddaad library-ga fiishin dark ages waxay yiraahdaan waxaad arkaysaa ayagoo cidiyihii ku baxeen oo intaas ay leeyihiin timihiina ku baxeen oo doofaar hoogeysanaya oo xataa aan qaarkood aad leedahay mararka qaarkood dadkaanu naftoodii maya naceen waa sawirada laga hayo muslimiintuna waxa ay qalayeen maskaxda iyo wadnaha ayay qalayeen baqdaad gabadha muslimadda ah wadnaha ayay qalaysay iyo indhaha ayay qalaysay marka islaamku sharaf iyo karaamo ayuu dunidan keenay ayuu yiri xaynta yarta ee xayraansanna diinta islaamka ma matasho annagu waa leenahay kuwa xag jira Christian Crusaders waa taqaanaa dhiiggii ugu badnaa ee dunida dadkii daashay ayay ahaayeen dagaalkii koowaad muslimiintu ma aysan garwadeen kama ahayn kii labaad muslimiintu garwadeen kama ahayn dhiiggii ugu badnaa ayaana dunida ku daatay si kastaba daawadayaal ha atiyana waxba ku war kugu daalinaya muuqaalka hadda halkan kuu soo fuulaya iyo difaaca gabadha muslimadda siduu u difaacay markaad waqti heshid daawo adiga ayaaba yaabi doona intaa ka hor saaxiib haddaad doonaysid daar weyn inaad ka dhisatid magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya shirkadda caanka ee Mara Luxury Homes ayaa ka haqabtiraysa kaaliska shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Dennisbridge Road dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay 2 block oo kala ah A iyo B dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 190 isku wareeg ah 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 280 isku wareeg ah 5 qol oo duplex plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 320 isku wareeg ah sidoo kale guriga